runtu waa sidii libaaxiyo kale oo iska aamu iyadu ayaaba iscadaynayse shakina kuma jiro in Real Madrid ay u jiisayso laacibkeedii hore ee Cristiano Ronaldo iyo waliba hogaamiyahoodii hore ee ruuxiga ahaa ee Zinedine Zidane waxaana cadayn kuugu filanba sida ay u gumaaday kooxda Levante oo marti ugu ahayd garoonkeedii Santiago Bernabeu waliba Madrid in ka yar 15 daqiiqo ay ku qaadatay kooxda Levante in ay ka dhaliso 2 gool waxaana mucjiso wadatayba sida uu ku yimid goolkii koobaad waa tii dhaxkatuur wacan oo wanaagsan uu u soo falaashay laacibka lagu magacaabo Jose Luis Morales Sergio Busquets daqiiqadii 7aad ee ciyaarta iyadoo oo daba ordayana Morales Rafael Varane waa tii uu ka dulqaatay banooniga Thibaut Courtois halkaasina waxa uu ka dhaliyay gool la dhihi karayba waaba kii qarniga. It's a lovely ball forward. Morales with a brilliant first touch and there's the first goal of the game. And it's a stunner from Jose Morales. Real Madrid oo joogta Santiago Bernabeu intaasi loogama xirin oo waxa yimid goolkii 2 daqiiqadii 13aad ee ciyaarta ka gadaal markii penalty ay heshay kooxda Levante waxaana lagu sharfay laacibka lagu magacaabo Roger Marti waliba wuxuu si qurux badan uu kaga dhaliyay gool hay'atee Badkaatwa aaga midig ee goolka halkaasina waxa ka yimid goolkii 2aad ee kooxda Levante and it's Roger Marti and he finds the back of the net and Levante are leading 2-0 here at the Santiago Bernabeu si waliba oo ay isku waawasho kooxda Real Madridna xitaa waa ay la imaan waysay goolkii calanka qaybtii koobaadna waxa lagu kala tagay Levante oo isku halaynaysa 2 gool iyo Madrid oo indhaha marig ka siinaysa markii la isku soo laabtay qaybtii labaad goolka qura ee kooxda Real waxa uu dhaliyay Marcelo oo darba xareysan kaga yaabsaday goolhayaha kooxda Levante. Marcelo strikes it and Marcelo scores. Well, it was good build up from Real Madrid. They've improved in this second. Si waliba oo wax loo duuduugo shaki kuma jiro in Real Madrid ay la taahayso la'aanta macallin Zinedine Zidane iyo hogaamiyahoodii mucjisada watay ee Cristiano Ronaldo.